السلام عليكم halka dawan soo hoodale maanta waxa ka hadli doona warbixin dhammaystiran oo ku saabsan iPhone 17 sanad walba Apple waxay soo bandhigtaa iPhone-nada cusub taasoo ku soo bandhigtay suuqyada waaweyn ee caalamka sanadkan 2025 Apple waxay soo saartaa afar nooc oo iPhones kuwaasoo la kala yiraahdo iPhone 17 iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max iyo nooc kale oo lagu magac dartay iPhone 17 Air iPhone 17 Air ayaa bedeli doona iPhone 16 Plus waana isbedel muuqda Apple sameysay doorkan iPhone 17 Air ayaa noqonaya 5.5mm iyo 145 gram oo telefoonkii ugu fudud ee abid Apple soo saarto Apple waxay wareegtay aluminum halka ay ka isticmaali jirtay titanium taasoo ka dhigaysa telefoonada mid fudud laakiin leh muuqaal aad u qurux badan gadaasha kaamirooyinka gaar ahaan Pro Max waa la bedelay waxaana loo yeelay design ballaaran oo ka duwan kii hore laakiin muuqaal ahaan isku dhow sanadka midabada ayaa laga dhigay kuwo ka duwan kuwii hore hoosoo kala yeelan doona iPhone 17 black white stick gray green purple iyo light blue halka iPhone 17 Air uu noqon doono black white light gold iyo light blue halka iPhone 17 Pro kuna yeelan doono black white gray blue dark iyo orange kamaradaha oo dib loo nashqadeeyay gaar ahaan Pro Max-ka wuxuu leeyahay kamera 3 lane ah oo gaaraysa 48 MP sensor ultra wide lens iyo 5x telephoto zoom kaas wax ka soo dhaweyn kara meelaha fog waxa ku cusub software-ka kamarada oo ku shaqeynaya AI ama garaadka macmalka kaasoo si toos ah u hagaajinaya midabka iyo iftiinkaba night mode-kiisu wuxuu la mid yahay kamarada DSLR-ka marka habeenkii wax lagu duubayo muuqaalku wuxuu noqon doonaa mid nadiif ah isagoo mid walba yeelan doona 12GB oo RAM kaydka iyo storage oo gaaraya ilaa 1TB tan waxay ka dhigaysaa mid ku habboon video editing-ka qiimasha culus iyo xitaa codsiyada AI baytariga iPhone 17 Pro Max wuxuu socon karaa 29 saacadood daawasho video ah waana rikoodh cusub Air modelku inkastuu yahay khafiif haddana wuxuu leeyahay battery la yaab leh kaasoo socon kara maalin ilaa maalin iyo badh shirkadda Apple ayaa soo bandhigi doonta September iPhone 17 taasoo sanad walba soo dhigto iPhone-nadeeda cusub kuna soo bandhigto suuqyada waaweyn qiimayaasha la filayaa ayaa ah iPhone 17 799 iPhone 17 Air 899 iPhone 17 Pro 999 halka iPhone 17 Pro Max uu noqon doono 199 sanadkan Apple waxay bedeshay wax badan laga bilaabo nashqada midabka iyo awoodda farsamo haddii aad tahay qof xiiseynaya muuqaal xawaare iyo nashqad khafiif ah iPhone 17 Pro Max iyo iPhone 17 Air oo doorashada ugu wanaagsan haddii aad ka heshay muuqaalkan subscribe dheh like saar sina share garee hana ilaawin inaad comment-ka noogu reebto midka aad filaysa inaad iibsato mahadsanidin